kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu waaweynaa ee caalamka iyo Soomaaliya oo qodobada aan kugu hayno ay ku jiraan xildhibaano loo diiday inay ka dhoofaan garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ku sii jeeday magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. Fanaanka caanka ah ee Saalax Carab oo sheegay in isaga iyo fanaaniinta xidigaha geeska aysan wax arxan dhex oolin. Waxaan idin haynaa qodob arrinkaasi la xiriira. Qodobada kale waxaa ka mid ah oo aan idin soo gudbin doono. Meydka wasiirkii waxbarashada Jubbaland oo Kismaayo la gaarsiiyay iyo maanta oo halka lagu aasay. waxaa kale oo wararka ku jira Allah u naxariistee waxaa saacadihii la soo dhaafay dalka Kuwait ku geeriyooday safiirkii Soomaaliya u fadhiyay Masar iyo Jaamacadda Carabta oo aan isagana taariikh nololeedkiisa aan idin soo gudbin doono. Wararka kale waxaa ku jira shaqaalaha ammaanka ee garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ee Somaliland ayaa gadooday iyaga oo ka cabanaya musuqmaasuq lagu sameeyay lacaga ay lahaayeen. waxaa kale oo wararka ka mid ah madaxweynaha Somaliland oo digniin culus u diray maamulada iskuulada oo la sheegay in si qarsoodi ardayda wax ku baraan. qodobadaas intaanu ku guda jirno wararka waxay noogu soo kordhay diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan. aynu ku bilownay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya waxaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho laga celiyay mas'uuliyiin ay ka mid yihiin laba xildhibaan oo ka tirsan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya kuwaas oo kala ah senator Iftiin Xasan Baasto iyo senator Fartaag oo sheegay in ay ahaayeen wafdi la socday meydka diyaaradii qaaday Allah u naxariistay wasiirka waxbarashada Jubbaland oo ay sheegeen in dawladda Soomaaliya u diiday inay raacaan. Senatarada kale ah Iftiin Xasan Iimaan Baasto iyo senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag ayaa shir jaraa'id oo ay ku qabteen magaalada Muqdisho waxa ay ku sheegeen in madaxweyne Farmaajo iyo sida ay yiraahdeen xukuumaddiisuna in dhala'aan u wajahaysa maamul goboleedyada iyo doorkooda iyagoo dhanka kalena sheegay inaysan wax siyaasada u socon oo wax laga xumaado ay tahay iyaga oo doonaya in ay meyd wax ka soo aasaan in loo diido inay tagaan magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka Jubbada Hoose. khilaafkuna waxa uu noqday mid cusub iyadoo iminkana la soo warinayo in Jubbaland iyo dawladdu ay mar kale foodo isdareen oo la xiriirta in la hor istaagay diyaaradii ay lahayd waa diyaaradii u socotay Jubbaland ee waday meydka wasiirka. senator Iftiin Xasan Baasto iyo senator Cabdullaahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo si wada jira jiraad u qabtay waxa ay sheegeen in madaxweyne Farmaajo in diyaaradda la celiyay ka badan uu ka maagan yahay Jubbaland waxaana ay sheegeen in qaab qabiilaysan uu wajahayo gobolada maamulka Jubbaland gaar ahaan gobolka Gado oo ay ku sheegeen in madaxweynuhu uu la doonayo in la kala gooyo dadka reer Jubbaland isagoo Fartaag yiri madaxweynuhu waa igu qabiil naguma matalo waxa uu ka sameeyo Jubbaland iyo ereyo kale oo la mid ah. fanaanka caanka ah ee Saalax Carab oo laga sii daayay xabsi ku yaala magaalada Hargeysa ayaa war aad loola yaabo ka sheegay markii uu saxaafadda la hadlay. Saalax Carab oo xabsiga laga sii daayay waxa uu sheegay in fanaaniinta xidigaha geeska aysan wax arxan dhex oolin maadaama aysan soo booqan kana qayb qaadan sii deysmadiisa. warkaasi waxa uu ka sheegay iyadoo uu sheegay in ehelkiisa iyo dad kale oo ka tirsan xisbiyada mucaaradka ee Soomaaliland ay garab taagnaayeen. fanaaniin kale ayaa la xiray inkastoo aan la sii deyn. mar wax laga weydiiyay fanaaniintii kale iyo halka uu ku ogaa waxa uu sheegay in uusan wax looga ku lahayn ka qayb qaadasho in la sii daayo iyo wixii lamid ah maadaama aan isagaba loo hadlin. aad baan ugu mahadcelinay laakiin fanaaniinta abaal dagama dhaxyan leh wad maasantiin laakiin bulshaweynta reer Soomaaliland aad iyo maamulkaba si sharaf leh ugu mahadcelinaya wayna ku mahadsanyiin jazakallahu intii la xirnaa way joogaan iyagana waxa rajeynaya insha Allah in la soo daayo aan u soo duceynaa duu Ilaahay insha Allah. waxaa fanaanka la xiray kadib markii Muqdisho uu ka tagay Hargeysa oo uu ka laabtay hees arrimaha Muqdisho ku saabsan uu qaaday inkastoo aan la cadeyn kiiska loo haystay laakiin jaaliyadda Yemen ee ku sugan magaalada Hargeysa iyo xubno ka tirsan mucaaradka Somaliland ayaa ka qayb qaatay in la sii daayo fanaanka sida uu shirkiisa jaraa'id ku sheegay. isla wararka Kismaayo haddii aan sii wadno dhanka kalena meydka wasiirkii waxbarashada Jubbaland ayaa Kismaayo la geeyay halkaasna lagu aasay maanta. Allah u naxariistay wasiirkii waxbarashada ee dawlad goboleedka Jubbaland marxuum Macallin Maxamed Ibraahim Maxamuud ayaa daqiiqado ka hor la geeyay lagana dejiyay garoonka diyaaradaha ee Sayid Maxamed Cabdulle Xasan ee magaalada Kismaayo. waxaa janaasada marxuumka garoonka diyaaradaha ee magaalada Kismaayo kula dukaday mas'uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam iyo ku-xigeenadiisa. waxaa kale oo joogay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya mas'uuliyiin horey xiran uga soo qabtay dawladda federaalka iyo maamulka Jubbaland kuwa ka tirsan. arrinkaasina waxa uu la xiriiray qodobkan hore idinkugu soo sheegnay oo la xiriiray in diyaaradii meydka qaaday iyo kuwii ka qayb gali lahaa aaskiisa oo wafdi ahaaba laga celiyay senator Iftiin Xasan Baasto iyo senator Fartaag oo ka soo jeeday iyagoo Jubbaland doonayeen inay ka qayb galaan aaska Allah u naxariistay wasiirkii waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawlad goboleedka Jubbaland. isla wararka geerida haddii aynu ku sii guda jirno Allah u naxariistay waxaa saacadihii la soo dhaafay ku geeriyooday dalka Kuwait
safiirkii Soomaaliya u fadhiyay dalka Masar iyo jaamacadda Carabta Cabdiqani Maxamed Wacays sida ay inoo xaqiijiyeen ila lagu kalsoon yahay Danjira Wacays oo muddooyinkii dambe xanuunsanayay ayaa geeriyooday cudurka sokorowga sida la xaqiijiyay xogtuna waxa ay tilmaamaysaa in cudurkaas uu waayadii dambe la xanuunsanayay sidoo kale marxuumka ayaa muddo dheer soo ahaa diblomaasi ka soo shaqeeyay arrimaha dibadda iyo wadamo badan oo uu ku metelay dalka Soomaaliya sidoo kale dalalka uu ka soo shaqeeyay waxa ku jiray Soomaaliya ku metelay Liibiya oo uu in doora safiir ka soo ahaa Cabdiqani Maxamed Wacays oo waaya arag ahaa ayaa sidoo kale shaqo bilaabay sanadkii 1970 isagoo ilaa xilliganna ka shaqeynayay arrimaha dibadda Soomaaliya allaha u naxariistee marxuumka ayaa ka mid ahaa safiirada dhowaan looga yeeray dalka balse ma uusan saameyn isbedeladii lagu sameeyay ee dowladda federaalku ay ku sameysay safiirada arrimaha dibadda u qaabilsan dowladda Soomaaliya wararka Hargeysa iyo Somaliland haddii aynu ku laabanana shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa ayaa gadooday iyaga oo ka cabanaya in la masuqmaasuqay lacago ay lahaayeen oo mushaar u ahaa shaqaalahan ayaa sheegay in cabashadooda ay u gudbiyeen maamulka hay'adda duulista hawada ee Somaliland balse markii waxba laga qaban waayay waxa ay sheegeen inay isku soo abaabuleen inay banaanbaxan sameeyaan iyagoo dhanka kalena sheegay inaysan aqbali doonin in xoolahooda la dhaco sida ay warka u dhigeen warkaasna waxa ay ka sheegeen xilli maanta ay ku banaanbaxayeen magaalada Hargeysa ee Somaliland waxa sidoo kale shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Hargeysa hore iyaguna cabashay uga muujinayeen in mushaarkoodii la musuqmaasuqay oo dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gaadiidka iyo garoonka diyaaradaha ee magaalada Muqdisho hay'adda gacanta ku haysa mushaar ay siin jireen laga gooyay sidaas daraadeedna aysan xaq u lahayn inay sii shaqeeyaan maadaama wax mushaar aysan helin isla wararka Somaliland haddii aynu kusii guda jirno sidaad noola socotaan oo aad markasta ku mahadsan tihiin madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa digniin adag waxa uu u diray maamulada dugsiyada iyo iskuulada ku yaala Somaliland kuwaas oo la sheegay in qaarkood ay ardayda waxbarasho siinayeen oo iskuulada la isugu tagayay tallaabadaas oo ah mid sharciga lagaga soo horjeedo sida madaxweynaha Somaliland uu sheegay warkaasna waxa uu ku soo aadayaa iyada oo magaalada Hargeysa la sheegay in iskuulo ku yaala ardayda ay isugu tagaan iyadoo cudurka coronavirus uu jiro oo goobi waxbarashada iyo shaqooyinka la furay ayaa haddana amarkaasi uu soo baxay inagoo caafimaad qoona in check sameeyno marka la ogaado goor hore inaad xog qalbi wad ka adagtahay muddo ma dasanaysa boqolkiiba waxa laga yaabaa 2-3 qof inay ka wada kacdanta kale laakiin haddii adoo sida oo isagoyn aad dadkii wada gaarsiiso oo kii daadaha iyo kii taag daraa iyo kii dee wax qabay ama uu kugu raago dhibaatadaas u keenay marka waa inaynu dhammaanteen u heegno horta in la isbaaro qofkii og la baaray positive noqda waa inuu soo dhowro wax qabaya oo caruurtiisii walaalkii aabihii jaarkii macalinkiisii waa inaan fidmaynin waxa waajib ah si aynu taa uga baxsanay ilaa isma hubnay 4 sano wada shaqeynaya war isma hayno maadaa sida qof walba waa suurtagal guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaya wararka waad kala socoteen barteena YouTube channelkan haddii aad ku cusub tahay subscribe saaro sababtoo ah waxaad ka helaysaa warar degdeg ah oo xaqiiqda ku saleysan nabadgelyo